سلمان يا أبو درداء والنبي ولا لي سلمان يو أبو درداء سلمان با سوز ديارت أبو الدرداء حاسكي أبو الدرداء وحو أركي أم الدرداء يو جلكيغا كم وقت نفق ضره ودركيغنا ماركتانا كدل قوقعي مركاسو كيلو وما حي نولشنا تكون نوشا وعي كتير صاحبك ديننا ديو باهنا هو ديو ما دونه وكقاده الفراغ way dacwaysan waqti walaalka Abu Darda Salman walaalka Abu Darda la yuriidu dunya ina diyo doonay ma sagada noo shaqo tagi laha oo dharka naga bedeli laha oo masaarif noo keeni laha soo ma hayna saga naga masuulaha ina diyo ma faruq ka qada diyo halu ay wasugi suu fadhiista Abu Darda oo socday markaas ay ku tiri walaalka Salman ba fadhiyo ku sugay dibadda markaasuu uu yimiday uu salaamay cuntay markaa ayuu soo qaaday cuntadii buu u dhigay markaasuu ku yidhi dee fadhiiso ila cun markaasuu yidhi may anu waan soomanahay soonka jabi buu ila cun waa sunneen uu la cunay habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu Salmaan uu dhinaca dhulka dhigay uu Abu Dardaana uu leeyahay Salmaan uu kaa seexdo markuu yidhi isla markii Abu Darda salaad buu kacay Salman baa yidhi war yaa seexo jooji salaadoo uu seexiyey bal si fiican hadalka u dhagaysta meel baan u socdaa hadda kolkuusina malaha uu kaa gamay buu haddana yar kacayo markaasuu yidhi war seexo marka kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti sahar saacadihii dambe yidhi imika ka hadal hawada tukana labadeenu weey markay wada tukadeen ayuu fadhiisiyo wuxuu ku yidhi war yaa Abu Darda ay dhageyso rabbiga xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay mid walba xaqiisa si buu keenay iska aamusa Abu Darda ilaa waan xalay salaada leelkiisa laga kala daadiyay oo soonkiina laga jabiyay waliba dardaaran la siiyay ma harine intuu soo socday buu nabiga ku soo dacweeyay wuxuu yaa rasuulallah Salman baa yimido soonkaygiina uu iga jabiyay salaata leelkii xalay toona uu iga manciyay adoo halkan joogo marjicii dhanaaya ayuu hadalka isaguna igu yiri marka nabigu muxuu yiri sadaqa Salman muxuu yiri sadaqa he muxuu kugu yiri wuxuu igu yiri naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbiga xaq buu kugu leeyahay mid walba xaqiisa si marka buu nabigu yiri sadaqa Salman run buu sheegay xadiiska ninka lagu akhrinay waa Abu Darda mise waa inaka bali sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomana adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka maahin anigii adiga maaha دائما جماعته واسكت قانانو نبا بري أفرت العشاء كحيل نبا قبضوا حديث كان سوق أخري فركابوا يمدوا يقولوا الشيخ حسينو أنا إني مرة عيبني ها حديث هذه قصر سين بالله يشيء يقول مرقاس أقول بحوا هذا الحديث ولا بدأت أنا أقول علوم مني هنا أرضي وحي علوم كسوم مقلين لا تكون شيء أنا يمحوها الحديث كواصل وحل يقولي نفذ حق بيك ولا له لا نفذ حق بيك ولا له rabbiga xaq buu ku leeyahay marka islaamta iga soo kaxayseen adduunyada iga soo kaxayseen daawo xuquuqdiisa umada yicin buu wara xadiisku waa sax weeyaan adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeeni baa bulman maanta waqtigeeni adduunyada u batay mise aakhirada kaliya jawaab mid ku batay waqtigeeni adduunyo u badan yahay qalbigeena maanta maxaa ku weyn adduunyo mise aakhirada adduunyada ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysa saadarteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbo yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican